wixii ku dhaafay way tageen wixii tagay way dhinteen ha ku fakarin tagtadii aad ka soo talaabsatay ku mashquul naftaada midda qoyskaaga asxaabtaada iyo guud ahaanba dunida kugu hareeraysan xasuusashada wixii tagay ka falcelinta foolxumadiisa waa waali aad u dilaysa doonistaada hadda iyo midda noloshaada dambe kuwa caqliga u saaxiibka ah waxay leeyihiin ujeeddo cad waxay xireen baabka wixii ay soo dhaafeen inaan dib loo furinna hoos bay ka xariiqeen musalsalka dhacdooyinkii tagay waa mid dhammaaday inaad ka murugooto kuguma soo laabanayo inaad ka walaacdo kuma wanaagsanaanayo inaad ka fikirtana kuma saxmayo niyajabkuna ma aha mid soo celinaya waayo wixii tagay tirsasho ma lahan ha ku noolaan riyooyinka waayihii hore iyo hooska wixii aad weyday ka badbaadi naftaada kumilanka maalmihii xumaa ma waxaad moodaysaa inaad qoraxda ka celin karto halka ay ka soo baxdo canuga dhashay caloosha hooyadii caanahana ibtanaaska mise ilin soo daadatay ayaad isha ku celin kartaa inaad dhex joogto tagtadaadii hore aadna ka walaacdo wixii kugu dhacay waa xaalad xun laga naxo lagana noolaan karin akhrinta buugga tagtadii hore waa daycidda buugga joogtada iyo timaadada waa kala dhataali juhdigaaga iyo curyaamin saacadda aad joogto eebbe wuxuuna xasuusiyey ummadihii hore wixii ay sameeyeen kadib wuxuu nagu yidhi tilka ummatu qad khalat taasina waa ummad wakhtigeedii la soo dhaafay si aydan ugu murugoon wixii aad seegteen likay laa ta'sow calaa maa faatakum xaajada halkaas bay ku idishahay waxaana tari mayso in meydka laga soo saaro godkiisa dhibteen waxay tahay waxaan ka caajisnaa maalinta joogtadeenna waxaana dayacnaa wax kastoo nimcaan haysanno haddii insi iyo jinni ay isku yimaadaan si ay u soo celiyaan wixii tegay xaqiiqdii ma ahan mid ay xalin karaan wax kasta oo dhaqaaqa dunida hore ay u socdaan adigana ha khilaafin sunnada nolosha